kulanti wacan mar kale saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekadii mulkiilaha qaranka qaybta saddexaad. sheekadan waxaa qoray wariye maahir jaamac aadam waxaana codeynaya anigoo ciise maxamuud ciise. muuqaaladan iyo kuwo kale oo la mid ah waxaad ka daawan kartaa janalka ogaalka audiosom. waxaan qaybtii ka horeysay kaga soo sheekaynay in saaxiibkayga cusub uu i dhex geeyay group WhatsApp ah oo ay ku jiraan dad gaaraya 200 oo qof oo magac looga dhigay wadaniyiinta Soomaaliyeed. waayadii la soo dhaweeyay layna weydiiyay dareenkayga oo aan ka gaabsaday. waa anigu ogaal raadiska u noqday bal inaan ogaado dadka halkan ku jira ee ku lafaguraya arrimo ama Syria mararka qaarkood. oo haddaan sii weydiiyay su'aalaha waayadii raggii soo dhaweeyay qaybtood ay ka baxeen groupka iyagoo aniga iga xanaaqay. deedna waa isagii uu iga saaray saaxiibkay qolka. waa anigii ka aamusay oo uu isagu ila soo hadlay. waataan wada hadal badan kadib u soo bandhigay codsiga. haddaba muxuu ahaa codsiga aan idin sheegay inuu ka warwareegay balse uu ku khasbanaaday inuu yeelo markii dambe. inta aanan guda gelin sharaxaadda waxa uu ahaa codsigayga bal aan magac gaaban oo afgarasho ah siino saaxiibkay kaas oo aan uga dhigayno sida uu isagu jecel yahay ee ah wadani. haddii qaarkiin aad dhaliilsan tihiin magacan waxaad xasuusataan dad badan oo aan ugu yeerno cadaawe balse midabkoodu uu madow yahay. waa muhiim in qofka la siiyo magaca uu jecel yahay si ay annaguna noogu soo gaabato tilmaamihiisa inta aan ku jirno sheekada. saaxiib wadani waxaan codsanayaa inaad igu celiso qolkii wadaniyiinta ee aad iga soo saartay. haddii aanay ahayn goobtu meel u gaara koox isqarinaysa waxaa rabaa inaan talada wadaniyadda la iga yeelan. marka hadda inaad igu celiso ayaan dalbanayaa. sidan ayuu ahaa codsigaygu laakiin isagu wuu ku dhici waayay haye ama maya midna. wuxuuse igu cudur daartay inaan leeyahay 2 sifo oo keenaya in qolkaas la iga soo saaro ama ay ka baxaan dad aniga dhibsaday fariimahayga aan la wadaagay kooxda. waatan hore inaan ahay ruux su'aalo badan oo meelo aan muhiim ahayn ka keenaya weydiimo. waatan labaade inaan ahay nin isticmaalka erey diimeedkiisu badan yahay goobtuna labadaas ay shaki iyo doodo kale ay ka dhex dhalin karaan. waa sax inaan su'aalo badnaa laakiin ereyo diimeedka la igu haysto ma insha allahba ma alxamdulillaahba ma ilaahba naga saaraya dhibta ilaa hadda ma aqaan. waayo waxaan ahay ruux aan weligii dhaliishan quruxda badan horay ula kulmin. waxaan qaaday shaki kale iyo ama kaag laakiin afka kama odhan oo gudaha ayaan keligay isu weydiiyey tolow ma isaga isku furanaya mise eedeymahan waa wax keeni kara in bannaanka lagu saaro. mar kale waxaan isdhahaa bisinka war dadku ma xaqla dirir baa ku jira maye saska ay ururdeymeedyadu abuureen armuu saameeyey. dhammaan isweydiintaas midna anigu naftayda ugama jawaabin horay ayaana uga sii socday. wadani wuxuu yidhi golaha ayaan la soo tashanayaa kadib 2 toddobaad isma aanan maqal. muddadaas waxaan xilliyada qaar booqanayay barihiisa Facebooka, Twitterka iyo Instagramka. laakiin mucjisadu waxay ahayd markaan soo helay muuqaal live ah oo uu duubay waqti badan ka hor gaar ahaan ku beegneyd xilligii uu dhacay isbedelka dowlad deegaanka Soomaalida ee xabsiga la dhigay Cabdi Ilay. walina aanu wax maamul hoggaan ah uusan yeelan deegaanku. muuqaalkaas wuxuu ku hadlayaa cod aan ahayn mid Soomaaliyeed laakiin afka uu ku hadlayo waa mid Soomaaliyeed. waxa uu hadlayaa sida nin aabbo u wada ah Soomaalida wuxuuna ku baaqayaa halaaga iyo dilka dadka qaba fikirka Soomaali weyn. waan la degay muuqaalkaas ugu yaraan 5 maalmood ayaa markaan fursad helaba iska daawan jiray. malaha haddaan master wadani hordhiga muuqaalkan muxuu haddana ku difaaci doonaa wadaniyadiisa. aniguse muhiim ima ahan inaan isu dhaarano ama aan wada doodno qancin awgeed laakiin waxaan shakhsiyan muuqaalkaas ka helay jawaabaha su'aalo badan oo ku taagnaa naftayda waana keedsaday. waqti yar kadib Abi Ahmed ayaa soo booqday Muqdisho. isla maalinkaas ayuu ila soo hadlay master wadani oo yidhi waxaan kula joogaa Muqdisho. laakiin kaftan ayuu markii dambe u rogay imaatinkiisa waase macquul inuu joogay ama yimid maalmahaas. runtii ninkani waa nin fara badan mararka qaar waxaad moodaa inuu u fikirayo si aniga uu igu maaweelinayo. anna waxaan ahay mid u guuri kara hadba marxaladda uu isku dayo inuu markaas ii raro.
isla maalinkii xigay ayaan haddana is arkay aniga oo dhex jooga qolkii WhatsApp-ka gruupka ahaa oo la bedelay ciwaankii iyo calaamadii saarneyd. waxaa loo rogay ciwaan ah isdhexgalka Soomaaliya. waxaana ugu horeeyay aan la wadaagay wuxuu ahaa cod aan duubay oo aan ku bilaabay qosol. waxaana aad ugu fogaaday ereyga isdhexgal iyo magaca Soomaaliya kali ah sida la isu raaciyay. waxaan xasuustaa inaan xitaa cidna salaan ka qaadin xilligaas xasarada aan dareemaya awgeed. nin ku hadlaya luqadda Ingiriiska iyo af Soomaaliya iswata ayaa igu yidhi kelmadda ah jooji faquuqa aad wado martibaa tahay ee ha fududaan. waxaan ku yidhi waxaan ahay mulkiilaha qaranka aad ka hadlaysaan, martina ma noqon karo ee admiinka ha laygu daro si aan goobtan u keeno aqoon-yahano badan oo Soomaaliyeed oo ka maqan madashan. Masar Wadani ayaa soo hadlay oo igu yidhi maahir hawsha la qabso hana hordhicin ee u kaadi walaal. samaysan jiray wiidigeena durduuran jiray wiidanahooda samaysan jiray aynu dilaynu dagaale kadhigtoonaada dadka yago aynu dilaynu dagaale. waxaan fahmay in qudhaydu rag isaga dhicin ay ugu jirto sidaana aan ku weyn karo xogo muhiim ah oo haddaan isdabciyo aan heli karo. sidaa darteed taladii Wadani waan u madax ruuxay, laakiin qoraal iyo cod midna kuma aqbalin. aamusnaan ayaan ku qaatay. rag wada jooga soo ma adka inay wax u kala qarsoonaadaan? dabcan haa. haddaba madasha waxaa ku soo biiray oday ka mid ah qolada mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee haatan jirta. odaygaas waxa uu sitaa number telefoon Ingiriis ah oo uu WhatsApp u isticmaalo, waxaana u saaran sawirkiisa. sida gabadhii reer Xamarweyne ee cadada ku aragtay muuska ayaan mar qura ku boobay baridin, laakiin igama uusan jawaabin ee kelmad gaaban oo Ingiriis ah ayuu nagu wada salaamay. malaha waa nin sidayda oo kale wareersan ma ahane, waa nin ka mid ah abwaanada qorshayaalka uu ku kala socdo qolkan dejiyay. ma ahane waa nin uun lagu casumay. intaas midna kuma tilmaami karo waan says idhi. war meeshu mucjisooyin badana hadda marka aad dhan u qaado waxa ay ka soo muuqanaysaa dhanka kale, laakiin waa hubaal in dadkan iyo madashooduba ay diyaarsan yihiin, isyaqaaniin, isku kalsoon yihiin, laakiin markaas wax weerar iyo dhibaato ah laguma soo qaado madasha. waxaase aad looga falceliyaa khudbadaha iyo aragtiyada siyaasiyiinta oo mararka qaar lasoo dhigayo gruupka. khudbadii aad hadaya dhageysatay oo leh laxan iyo erayo bixinaya faham kale, mar baan isidhi majinbaad la daristay. haddaba markaan wax badan ayaan fahmay, rag badanna waan iskaftan barannay, laakiin marna falanqayntooda kama mid noqon, waayo wax kasta oo aan aaminsanahay waa wax khilaafaya sida gruupku jecel yahay. mana rabo in bannaanka la iiga saaro goobtan xiisaha badan, laakiin waxaan ku fikiray inaan muuqaalkii Masar Wadani ee uu ku baaqayay laynta dad Soomaali ah ama Soomaali weyn diidka soo dhex dhigo gruupka. haddana go'aankaas wuu ila qadhaar yahay waxa ka iman kara, kamana baaqsan karo inaan mar kooxdan tuso wajiyada kale ee ay leeyihiin. laakiin taas maxaan kala kulmi doonaa? qaybta afraad waxa aynu kaga jawaabi doonaa su'aalaha guuxaya ee ah muuqaalkaas muxuu ka bedeli doonaa gruupka, anigase muxuu i dhaxal siin doonaa? sidee dad taageersan xukuumadda jirta iyo odayaal mucaarad lagu yaqaano ugu kulmaan madal noocan ah? xaqiiqdu waa maxay? la soco qaybta afraad. janalka ogaalka Audiosom waxa uu ka codsanayaa mar kale inaad subscribe, like iyo share ba aad siiso si aad u dhageysato qaybaha kale ee sheekadan.